horta dalka ma leeyahay wax gaadiida oo qaranka gacantiisa ah marka guddigayna kaligiis ma shaqay karo hadii guddigaas uusan imaanin guddigaas dib wuxuu nooga dhacay annaga sharcigiisa waxaan gudbinay bishii July caawimaadii u baahnayeen ciidamadu ay helaan si markaa akhiritaanka ciidan qaran loo helo waajibaadkooda si la rabo ay u soo buuxiyaan waa qabaa inuu baarlamaanka uu liisa hore u sii wadanayo gudiyada joogtada ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waa kuwa soo dheeraandhiriya soona bisleeya howlaha ay baarlamaanku qabanayaan bisha soo socota ama sanadka soo socda waxaana lagu daraa qorshe howleedka ajandooyinka mudanayaashu u diyaarsan ka hor inta aysan kulmin guddigan 15 guddi ee baarlamaanka ayuu ka mid yahay baarlamaanku tiradiisoo dhan 275 waxay u kala qaybsan yihiin 15 guddi bay u kala qaybsan yihiin wuxuu ka kooban yahay baarlamaanku saddexda guddoonka guddoomiyaha ay labadiis ku xigeen habdhowraha ay labadiis ku xigeen 15 guddoomiye guddi iyo 15 guddoomiye ku xigeen iyo 15 xoghaye guddi iyo xubno ka tirsan 15 kaas guddi waxa jira marka guddi joogta ah oo kulminaya guddoonka guddiyada guddoonka baarlamaanka iyo habdhowrka baarlamaanka oo guddiga joogtada baa la yiraahdaa ee baarlamaanka aniga magacayga waa Maxamed Umar Dalha gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga baarlamaanka Soomaaliyeed ayaan xilligan aan ahay guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya magacayga Fawzi Maxamed Sheekh Xasan la yiraahdaa waxaan ahay gudoomiyaha arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow gudoomiyaha guddiga gaadiidka garoomada dekedaha wadooyinka iyo tamarta ee baarlamaanka magacayga waa Marin Cariif Qaasim waxaan ahay gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka xildhibaan Muuse Sheekh Cumar waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magacaygu waa xildhibaan Cabdulqaadir Aadan Nuur Siisi loo yaqaan gudoomiyaha guddiga kheyraadka dabiiciga iyo bii'adda xildhibaan Cabdullaahi Shaac gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Macallin Aadan waxaan gudoomiye ka ahay guddiga xaqiiqi raadinta dib u heshiisiinta iyo hanti isu celinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magacaygana yahay Aadan xildhibaan Aadan Sadiiq Maxamed magacayga waxaa la yiraahdaa Xuseen Carab Ciise waxaan ahay gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka magacaygu waa xildhibaan Shuuriye Muumin Afrax gudoomiye ku-xigeenka guddiga beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta reer miyiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kasokow doodaha iyo kulamada baarlamaanka waxaa jira kulamo gaar ah oo ay gudiyada joogtada ee baarlamaanka ku yeeshaan xarunta golaha shacabka sidoo kale guddoonka waxa uu ku leeyahay xafiisyo uu sidoo kale uga warqaato gudiyada iyo kulamo kale oo ay la yeeshaan gudiyada baarlamaanka ama guddoonka uu la yeesho qaybaha kale ee bulshada oo mararka qaarkood xarunta golaha shacabka uu ka qabsoomo 15 guddi ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya guddi kasta waxa uu qaabilsan yahay hay'ad ama wasaarad gaar ah isagoo guddigaasi ku dabagala shaqada wasaaraddaas iyo qabsoomideeda guddi walbaahi wuxuu oversight gareeyaa ama maxaan kura u kuurgalaa hay'ad kamid ah hay'adaha kale ee fulinta ee dawladda kuwaasba wuxuu u xilsaaran yahay la xisaabtankooda wuxuu qaataa dowrka yacni sharci dejinta wuxuu u yahay horudhac waa meesha lagu soo karkariyo gudiyadu shuruucda la keenayo baarlamaanka marka wasaaradda haddii ay hindis sharciyeed ay keento oo golaha wasiiradu ay soo gudbiyaan wasaaraddaas guddiga la ologa ah
oo ku aadan baa loo gudbiyaa baarlamaanku uu gudbiyaa uu soo dhiraandhiriyaa baarlamaanku keenaa marka shuruuc haddii la keenayo wax arrin allaalay arrintii baarlamaanku uu hay-addaas dhankeeda ka qabanayo hadday hay-adaha amniga ay tahay oo sida maxaan ku rahdaa wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay iyo amniga wasaaradda amniga oo kale haddii maxaan ku gaashaandhig ay tahay hadday maaliyad tahay hadday maxaan ku rahdaa gaadiid tahay wasaarad walba iyo hay-ad walba ee jirta guddi ku shaqo leh baa jira baarlamaanka kulleyba guddiga inta badan howlaha laga sugaa waa kormeer iyo dabagal iyo ogaansho iyo ogaalnimo uu noqdo wasaaradaha ama wakaaladaha ama hay-adaha kale uu la shaqeeya annaga ka guddi ahaan runtii waa guddiyada waxaa la dhihi karaa halbowlaha u ah khaasatan kaabaanada wasaaradaha ee kulleyba dhaqaalaha dhinacooda leh ee kuwa la halmaala ama shaqada la wadaaga waxaan howl la wadaagnaa sida wasaaradda gaadiidka ciri dhul leh wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaa wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska wasaaradda tamarta iyo biyaha runtii guddiyada baarlamanku anagu wada shaqeyn fiican baan leenahay shaqeyntaana waxaa keenaya ma ogtahay dadkan guddiyada ah waa dadaan muddo soo wada shaqeynay xilliga horean wasiir dowlaha ka ahaa iyo xilligan hadda wasiir ku-xigeenkuna marna waa wasiir marna waa xildhibaan waa nin khibrad leh aniga laftaygu xildhibaanada hore aan ka mid ahaan jiray marka aad baan maaragtay dee shaqadooda waa fahansannahay guddiyada waxay yihiin wixii inaga soo codsadaana inaan u fududayno waa wax toosin marka mar haddii wada shaqeyntu aad diyaar loo yahay annagu waxaan u aragnaa waxaan dadku had iyo joor ay ka dhigaan baarlamankii inay wax jijiidayaan waxba jiidi maayaan waxbay saxayaan guddiyadu waxbay saxayaan haddii wax lagu weydiiyo dee wixii jiray baad u sheegaysaa iyaguna haddii wax khaldan yihiin midda kale culays adiga ku fuul lahaa keligaa ayay kula qaybsanayaan oo haddii mar baarlamanku kula ogyahay oo guddiga aad tiraahdo waxaan aan samayna kana samaynayna haddaan wax yar soo qaado oo aanba sawirkan halkan aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guudiga aanu ka mid nahay gudoomiyaha guddiga gaadiidka waan u malaynayaa muxuu ahaa maaragtay dhuubow inuu nala dhagax dhigay baraha marka anagu aad baan ugu faraxsannahay wada shaqeynta naga dhexaysa baarlamanka la-aantiisna dee waxba ma shaqeyn karaan waa uun gacanta midig gacanta bidix baanu nahay haddii dhinaca xukuumadda labada dhinacba ka tirsanahay ee waajibaadkooda sidii la rabo ay usoo buuxiyaan waa qabaa inuu baarlamaanka howlihiisa hore usii wadanayo muddadii hadda labada sano ahayd runtii waa horta waa intaanan ka hadlin waa guddiga horta ugu ballaaran guddiyada yani markii loo fiirsho wasaaradaha ay wada shaqeynta leeyihiin maxaa yeelay waa guddiga keliya ay wada shaqeynta leeyihiin ama ay ku leeyihiin wada shaqeyn iyo muxuu ahayto wasaaradaha ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda tacliinta iyo hidaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waa 5 wasaarada marka waana wasaaradihii lafdhabarka u ahaa arrimaha bulshada oo intaba arrimaha bulshada ku xiriiraan marka runtii waa wax badan ayaa runtii guddiga u qabsoomay kadib markii yani wasaaradaas ay wada shaqeynayeen runtii waxyaabo badan oo la taaban karo ay yani u qabsoomeen maxaa yeelay guddiga wuxuu ku xiran yahay meelaha uu ku leeyahay ama hay-adaha uu ku leeyahay oversight-ka ama kormeerka iyo controolka iyo kawarqabka iyo la socodka hay-adahaas ama wasaaradahaas aan kor kusoo sheegin wada shaqeynta leeyihiin isla sidaas oo kale waxay wadaagaan wasaaradda iyo guddiga qaabilsan macluumaadyo la xiriira howlaha sharciyeenta u baahan iyo qaababka baarlamanka loo horgeyn lahaa iyo arrimo kale guddi kasta 2 sano ee lasoo dhaafay waxa uu qabtay shaqooyin uu ku faano walow caqabadaha ku xindaaban xaaladaha dalka ka jira ay wax badan u suurtageli waayeen howlihii looga baahnaa 2 caqabadooda waaweyn ayaa na soo food saaray waana kuwa dib noo dhigay
tan koowaad waa caqabada ku saabsan guddiga dastuurkan hadda soo sheegay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka sidaan u sheego waa lugti labaad oo guddigayna marka guddigayna kaligiis ma shaqeyn karo haddii guddigaas uusan imaanin guddigaas dib wuxuu nooga dhacay annaga sharcigiisa waxaan gudbinay bishii Julaay 3deedii 2013 guddigana hadda un baa la magacaabay marka taas caqabada koowaad oo hakad hawsheena gelisay ahayd hakadka labaad waxaa nagu riday guddigu si oo hawshiisu u fushado wuxuu u baahan yahay miisaaniyad dawladdu inay u qorshayso hay-ada fara badanna waxay yiraahdaan dastuurkan la shaqaynaynaa oo miisaaniyad ayaan u haynaa dhinaca dawladdana miisaaniyadu noogama imaanin dhinaca hay-adahana miisaaniyad noogama imaanin sidaas daraaddeed labadaas hakad ayaan na galay kan noogu adkaa wuxuu ahaa sharciga dhismaha gobolada iyo degmooyinka iyo maamul goboleedyada runtii waqti badan oo naga qaatay bilooyin badan oo naga qaatay laakiin alxamdulillah waa ku guuleysanay baarlamaankana waa gudbinay oo wuu ansixiyay baarlamaankana caqabadaha inoogu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa caqabadaha dhinaca maaliyadda oo runtii sabab u noqotay inuu maaragtay habsamo socodka shaqada guddiga ay caqabad ku noqotay sidii haddii aan u baahano inaan maaragtay investigation samayno ama baaritaan ku samayno kiis dhacay caqabad dhinaca maaliyadda ah ay maaragtay nala soo gudboonaan jirtay sharcigaas wuxuu ku saabsanaa guddiga oo xuduudiyada iyo federaalka runtii asna sharci wuxuu iska ahaa muxuu ahaa shuruucda sharciyada ugu adag oo ahaa waa ka shaqeynay xukuumadda noo soo gudbisay annagana kolleyba shaqadeena yaan ka qabsanay baarlamaankana waa soo celiyay maadaama uu baarlamaanka soo celiyay kolleyba waa la soo celin doonaa markuu hadda oo fasax laga soo noqdo waxaan rajaynaynaa kadibna inuu gudbaan rajaynaynaa waa laga yaabaa sabab badan inuu usoo noqday marka wixii xildhibaanada qasab ma ah inay markasta sharci kastoo loo geeyo inay gudbiyaan cilladou yeelan karaa waxaan rajaynaynaa inaan soo saxno hawshiisa sida guddiyada kale ee baarlamanka wuxuu la xisaabtan dabagal kormeer iyo wada shaqayn uu la leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo baarlamaanka magacaasi uu u ansixiyey ayadana lagu balaaygreeyey ayaa wuxuu yahay mid hawshiisa 90% la jaanqaada habka siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda ay u maareyso soo shaqeeya kadibna wasiirkaasi guddida joogtada wada shaqeeya waxaa kaloo jira in madaxda sare ee qaranka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo prime minister wada shaqeyn toos ay leeyihiin taasoo fududay karta xukuumadda shaqada laga rabo mar walba soddonkii bishii Juun 2014 xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay meel mariyeen xeerka lagu dhisayo guddiga adeega garsoorka taas oo muhiimad weyn u leh dhamaystirka hay'adaha dawladda in golihii adeega garsoorka sharcigiisii la ansixiyey haddana aan maalimo u hayno in ay xukuumaddu soo gudbiso xubnihii golahaas adeega ka mid noqon lahaa waxaad fahamtaan waxa weeye golahaas adeega garsoorka maalinta la dhaariyo waxaa dhismaya golihii saddexaad ee qaranka hadda kii ku meelgaarkaa baa shaqaynaya waxaa sidoo kale aan ka shaqaynay sharciga garsoorka guddiga adeeg garsoorka lagu dhisayo oo aad ogtihiin in mar dhow baarlamaanka uu ansixiyey dhismaha guddiga adeega garsoorka waxa uu sahlayaa in la helo la xisaabtan dhab ah oo hay'adaha dawladda iyo mas'uuliyiintuba ay wajahayaan waxyaabo marka tiirkii saddexaad wuxuu inoo dhismi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kalfadhiga shanaad bilowgiisa oo sharciga la ansixiyay ku qoran tahay waa intaasoo maalmood bay haysataa xukuumaddu inay golihii adeega garsoorka kusoo dhammaystirto baarlamaankana kusoo hordhigto baarlamaanka ansixinaya madaxweynaha waxa weeye sharci u rogaya waa la dhaarinayaa waxa weeye madaxweynaha furaya waa kalfadhi uu leeyahay magarad ya waxa weeye sida baarlamaanka iyo xukuumaddu ay fadhiyo u leeyihiin oo xeerosaad u leeyihiin oo u shaqaynayaan ayuu golahaasina u shaqaynayaa marka waxa weeye waa dhammaystirka tiirarkii dowladnimo ee rasmiga ahaa oo kumeelgaarka laga saaro
waa hawsha ugu weyn ee baarlamaankan u taallay marka dee doorarku ku leeyahayna waa si wanaagsan baad u fahamsantihiin waxa weeye inuu xukuumadda ku cadaadiyo inay fuliso hawshii muddada yacni loo qabtay haddii ay ku fulin weydana lagula xisaabtamo marka ay keento hindisihii sharcina baarlamaanku uu sharcigii dejiyo waxaa jira sharciyo muhiim u ah dalka oo aan weli lagu guulaysan in baarlamanka la hor keeno ama la horgeeyo sababa jira awgeed sababtu haddaba maxay tahay runtii inaan si dhammaystirno runtii dib habaynta ku hubsanno annagu la xisaabtan baan leenahay in dib loo habeeyo ciidamo qaran la dhiso saad og tahay heshiisyadii hore ama talyaaniga turkiga waa ninkii marinay baarlamaanka si markaa imika waad og tahay intaas 100 oo ay noo tarin garayaan oo askar ah ama dhakhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan ama saraakiil lasoo tababarayo qaar waa soo noqdeen marka runtii imika kuwa wadana waa talyaaniga imika la eegayo heshiiska talyaaniga oo iyaga naftirkooda la rabay naga caawiyaan tababar iyo wuxuu u baahan yahay ciidamadu marka anagu waxaan rabnaa inaan heshiisyo badan noocaas oo kale ah aan la eegno xukuumadda si aan ugu hubsano marka in runtii caawimaadii u baahnaayeen ciidamadu ay helaan si markaa akhiritaanka ciidan qaran loo helo leanna sidaan haddaan ku socono runtii waxba nooma qabsoomayaan runtii howlahan horyaalla qaarna waa kuwa aan kusoo sheegay oo mashaariic gabagaba ah oo in loo codeeya ah waxay la tahay kuwaas kalfadhiga shanaad bilowgiisaba waa ka gudbi doonaa waana gabagabayn doonaa wali wixii kaloo mashaariic hindis sharciyeedyaha oo wasaaradda aan la shaqayna ay soo gudbiyaanna ayagana waxaan jecelnahay ka guddi ahaan sida ugu dhaqsaha badan inaan waajibkeena uga gudanno baarlamaankana aan horgeyno waajibaadka guud oo baarlamaanka wada saaran oo ah dib u eegista dastuurka federaaleynta wacyigelinta dadka outreachka waxaan la yidhaahdo in populationka la gaarsiiyo wacyiga runtii waa mas-uuliyad baarlamaanka nagala dhexayso oonana jecelnahay sida ugu habboon inaan u gudanno run ahaantii caqabadaha jiri waxay ka mid ahaayeen guddiga wuxuu diyaar u ahaa meel kasta oo maalan deegaamada ama degmaha laga dhiso ama ha laga dhiso gobol dowlad goboleed iyo maamul goboleedba guddiga inuu tigo oo kasii dhismahaasi in laga sii horumariyo wacyigelin ku saabsan dhinaca dib heshiisiinta macnaha dadkii oo isfahmay oo heshiiyey oo diyaar u ah in maamulkii la dhisaya ay ka qayb galaan muxuu ahaa ayaa guddiga go-aankiisa ama qorshe howleedkiisa uu ahaa meelaha munaasibka ah la tegi kara ee dalka taas waxay noqotay yani caqabad oo macnaha aanan sidii la rabay aysan u suuroowin oo sababa ma aragtay muxuu ahaa kolleyba ku saabsan dhinaca dhaqaalaha ilaan safar bay u baahan tahay dabcan guddiga tiradiisuna waa kooban tahay khubarada baarlamaankuna de tayada intuu haysto ayuu ku shaqeynayaa marka xubnaha guddigu imkaaniyaad badan ma haystaan facilities badan oo lagu shaqeeyo ama fan lagu qabto ama shirar ama howlaha lagu qabto waxaas koobanna baarlamaanka qaybihiisa kalan kala midnahay laakiin waxaan caqabadahaas ku dadaalnaa annagoo caqabada kama sheekayno sida caqabada looga gudbi lahaa ayaan ka shaqeynaa hadba kooxda inta joogta ayaa shaqada u jilib laabta doodo badan baan ka yeelanaa saacado aan ahayn kuwa baarlamaanku shaqeeyo ee dheeraadaho guddigu leeyahay ayaa jira sida guddiyada kaleba u leeyihiin gaadiidka dekedaha gaar ahaan waxaad dareemaysaan runtii in mashaakilaad badan dhinacaas uu ka jiro markii maamul ee dekeda la yihahdo qaafkeeda wax la garan karo laakiin su-aalaha inta badan soo noqnoqonayo waxay tahay horta dalka ma leeyahay wax gaadiida oo qaranka gacantiisa ah taa ayadaa waxay noqotay inaan ayadii aan dib u raadino inta badan si aan iskaashi weyn wasaarad ahaan iyo waxaan ku beerin karnaa lagu beeriyo inaan ragga qaar injineerada ahaan helo kuwaas oo kulleyba wixii howlaha inta badan raggii hore ula shaqeyn jiran ahaa rag banaanka ka fadhiyana ah waxa inta badan hadda qabsoomida noqonaysana ay tahay inaan isku downay in aan ka bilowno inaan raggaas ayaga isku dirno isa soo raadiyaan
si qeybta ugu habboon ee gaadiidka badda habkiisii iyo nidaamkii shuruucda uu lahaa la isla helo. ragga guddiyada ku jira gaadiidka ismaandhow haddii laga soo qaado inta kale ku-xigeenka gabadha ah soomad garan shaaro muddo dheer bay ka shaqaynaysay marka qof hadda khibrad fiican u leh weeyaan. waxaa ku jira odagii xaaf oo kale ku jira oo maxay ahayd qolooyinkii shirkadaha dowladaha ragga waxale oo macaamiisha dhinaca kaga jiran dhinaca nimanka. marka anigu waxaan qabaa dad aan isfaham karno wada shaqayn fiican naga dhaxayso ayaa guddiga ah. marka gaar ahaan baarlamaanka oo dhanba waxaan u aragnaa anagu inay maaragtay si ku taagan yihiin ay tahay si fiican la isku fahmi karayo oon talaaba meesha wax marayaan hore looga sii socdo inay tahay. dhanka xukuumaddan runtii annaga baarlamaanka wada shaqeeya naga dhexaysa mararka qaar waa jirtaa dad Soomaaliya oo dhaliila baarlamaanka ama siyaasiyiin ku dhaliila dhan mooshinay keenaan laakiin baarlamaanka waa sharci dejiye waxay xaq u leeyihiin xukuumadda la xisaabtamaan waxay xaq u leeyihiin madaxda qaranka la xisaabtamaan haddii baarlamaanka uu iska noqdo meel oo laga sacabtamo runtii oo la yiraahdo wax walba oo keentiin waa raacsanna anaga ruuxadana siyaasadda waa qaldaynaa taana in la balance gareeyo u baahanto anaga la xisaabtamo iyaguna mas'uuliyadda saaran dalka iyo dadka ay gutaan. marka aniga waxaan runtii dadka soo dhaweeyaan ku jiraa in baarlamaanku shaqada ay leeyihiin ay qabsadaan oo hay'ad kasta sida ay tahay oo la xisaabtamaan. waxaana dhihi karaa runtii baarlamaankan hadda jira 2016 rajaa jirta inay gaarsiin karaan dalka meeshii looga baahnay anagana ka xukuumadaha mar walba in la shaqeyno diyaar u nahay. Baqadiisiyaa loo go'ay